Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran janaalka Aamin Technology. Isku soo noqod wanaagsan. Insha Allahu tacaala maanta waxaynu qaadan doonaa sida loo design gareeyo shahaado. Waxaynu baran doonaa maanta oo aynu xoogga saari doonaa oo aynu focus saari doonaa hadduu Alla idmo sida loo design gareeyo design-kan weliba quruxda badan. Waana shahaadooyinkii ugu dambeeyay ee la isticmaalo dunida. Hore waxaynu usoo baranay sida loo sameeyo logo iyo ID card iyo banners. Sidoo kaleeto waxaynu soo baranay cashiro badan ayaa meeshan ku jiro. Asxaabta qaar ayaa waxay soo weydiiyeen intaa ka heli karaa sawiradan aad isticmaaleysid ustaad ama engineer. Waxaan dhahay waxaad ka heli kartiin Telegram ayaan idiin sameeyey. Telegramka linkigiisa waxaa idiin soo dhigi doonaa video kasto description-kiisa. Videoga markaad kili ku siidid kadib waxaad sii tegaysaa qaybtan hooso waxaa sii furi doontaa see more. Kadib Telegram linkiga waa kaasaa. Sidoo kale YouTube waa kana. Course-kan waxaa kaga badi doontaa intaanu shay. Marka isla socod wanaagsan. insha Allahu tacaala maanta waxaynu design gareyn doonaa naqshadan shahaado sida loo design gareeyo. Shahaadadan sawiradan waxaan soo dhigi doonaa Telegramka. Waa fududahay. Marka horeeto waxaanu soo kacsan doonaa oonu soo samaysan doonaa artboard-kan. File ayaynu tigi doonaa kadib waxaan dhihi doonaa new artboard-ka magaciisa waxaynu ka dhigi doonaa shahaado. Shahaado markaanu dhahno artboard-ka sidoo kaleeto inta cabirka waxaanu dooran doonaa centimeter. Intan waxaanu ka dhigi doonaa width-ka 28.58. sidoo kaleeto height-kana waxaanu ka dhigi doonaa 22.23. cabirkan waa cabir aan u doortay badanaa shahaadooyinka loo isticmaalaa. cabir kaleetana A4 na ku design gareyn kartaa. kadib waxaanu dhihi doonaa resolution-ka wuxuu noo ahaanayaa 300 maadaama uu lasoo daabacayo. kadib okay ayaan dhihi doonaa. intaa markay noo soo baxdo marka hore waxaynu ku soo darsan doonaa shahaadadan qaybta hoose background-ka. background-kaas waa sawir waa image. Telegramka ayaanu soo dhigi doonaa. bartaas ayaa ka heli kartaa. sawirka markaynu soo gashano sawirka waynu ku weynay doonaa. sawirku waa sawir xoogaa yar u qurxan. kadib inta markaad saartid shift la qabo si aad hal dhinac u weynaysid kadib calaamadda tika noo saar. taas markaynu sameyno si uu noo dhaqaaqin waa xiri doonaa qufulka ayaanu saari doonaa. kadib waxaynu ku soo darsan doonaa qaybtan xigto oo ah shape-ka. waxaynu tigi doonaa shapes weliba rectangle ayaan soo qaadan doonaa. waynu ku daragaray doonaa. taas markaynu sameyno shape-kan kalarka aan u baahana waa ay qaaday. kalarkan aad haddaad rabtid waxaa ku sii doonaa koodkiisa. koodkiisa waa kana 12 1F2D. kalarkaas qaado koodkaas qaado kadib ku baasti garay. waynu rotate garay doonaa ama waynu wareeji doonaa. rotate ayaanu ku samayn doonaa geeskaas ayaanu qaban doonaa. markaynu saas dhahno wax yar dib ayaynu celi doonaa. sidoo kaleeto saas ayaynu dhihi doonaa. waynu weynay doonaa asiga. intaas markaynu sameyno waxaynu kusoo xiri doonaa aynu kusoo dhiji doonaa qaybaha kastoo sameyno si uusan dhaqdhaqaaq u sameynin. waxaynu ku samayn doonaa qufulka ayaanu saari doonaa. kadib waxaynu ku xiji doonaa kan kaleetana waa isigana shape yar waayen xariiq ahaan camale. geeskaas ayaynu kasoo jiidi doonaa ama ul yar ayaanu samayn doonaa. cabirka intaas ayaynu ka dhigi doonaa. kalarka waxaan ka dhigi doonaa jaalahaas. haddii aad kalarka u baahan tahay koodkeeda iyadana ku siinaa. koodkeeda waa kana waxaa qaadanaysaa koodkan qaado. okay ayaan dhihi doonaa hadda aniga. kadib intaas markaan sameeyo asigana waxaynu ku samayn doonaa rotate. waanu wareeji doonaa. sidoo kale geeskan waa ka weynay doonaa. waxyar xagga ayaan geyn doonaa. markaynu shape-kaas yar aynu ku darno waxaynu kusii dari doonaa shape-kan kaleeto asigoo weyn waayen. shape aynu soo qaadan doonaa inta ayaynu ku daragaray doonaa. inta markaynu ku daragarin shape-kan kalarkiisa asigana waxaynu dooran doonaa jaalle. sidoo kaleeto inta markaynu sameyno rotate ayaynu ku samayn doonaa. rotate marku sameyno tag ayaanu saari doonaa. tag markaad saartid afar geeskaas ku yar markuu soo baxo shift qabo. shift markaa qabatid rotate calaamadday noqonaysaa. shift markaa qabatid geeskaas qabo. sidoo kaleeto intuu celi. soo ujeediin ba hadda geesaskii wuxuu ku noqday mid jaran oo faliiq ah. taas markaynu sameyno inta ayaynu dhihi doonaa waynu rotate garay doonaa asigana. dib ayaanu celi doonaa. taas markaynu geyno ma isku dhibi doono. taas markaynu geyno waxaynu kusoo xiji doonaa isla asigan. waa kan le kuubi garaysan doonaa. kili ku dheh kadib alta qabo daraagarey. kadib shift qabo si hal dhinac u weynaysid. shift qabo adigoo shiftiga haayo daraagarey. wax yar dhinacyasha dale ka celi. geeskas kalena xagga gey rotate garey. intaas bis waayen. intaa markaynu sameyno
wax yar shift ayaynu qaban doonaa intaynu drag gareyn doono. Markaynu sameyno kadib waxaynu kusoo xejin doonaa isla asigan kan ayaanu soo copy gareysan doonaa. Alta qabo inta geey sidoo kaleeto rotate ku sameey wax yar rotate marku sameyno. Intaas markaynu sameyno waxaynu usii gudbi doonaa intaa horta si ay nooga dhaqdhaqaaqin horta hal mar ayaga copy noo dheh alta qabo copy gareey. Sorry highlight hal mar isla wada saar. Kaas hoose quful naga saaran kan hoose quful ka qaad kadib highlight hal mar isla wada saar all. Highlight markaa saartid alta qabo drag gareey. Inta markaa geentid hal mar iyada rotate gareey. Xag ka soo qabo geeskaas intuu wada rotate gareey. Intaas markaynu sameyno dib u celi. Properties waan isku xiri doonaa uma baahnin wax yar inta aynu u rotate gareey doonaa. Intaas markaynu sameyno kan dib wax yar u celi. Still waanu saxiix doonaa nu qurqurxi doonaa. Kadib dib ayaynu u celi doonaa. Intaas markaynu sameyno kan keliya hadda highlight ma wada saarno tigtaas saar soo highlight ku wada qaadmo si aynu hal xab u doorano kadib kan wax yar sameey intuu soo celi kan wax yar intuu celi waanu qurqurxi doonaa. Intaas markaynu sameyno wixii qurxis adiga ayaa qurxisi doono keliya intaan highlight wada saar hal mar qufulka taabo asaga isku wada xiri doono. Taas highlight saar hal mar qufulka dooro sidoo kale asiga qufulka isku wada xiri doono. Markaynu quful ku xirno waxaanu ku darsan doonaa qaybta xigto qoraalka. Qoraalkan waxaan tagi doonaa type tool kadib waxaanu qori doonaa certificate kadib intaan ayaanu weynay doonaa intaynu rabno ayaanu ka dhigi doonaa. Marka meeshaas geyno intaas tig ayaanu saari doonaa. Tigta markaynu saarno kadib waxaynu ku darsan doonaa qaybtan xigto. Qaybtan waxaan soo dooran doonaa shape weliba rectangular ah inta ayaanu dhigi doonaa. Halkan shape ayaanu copy gareysan doonaa. Intaas markaan sameeyo kalarkiisa waxaanu ka dhigi doonaa kalar jaala. Kalar jaala markuu noo qaato shape-kan si aan u sameeyo qaybtan fiida waxaan ku qasbanahay inaan isticmaalo pen tool. Waxaan soo dooran doonaa pen tool markaanu soo doorto geeskan ayaan waxaan ku sii doonaa click. Geeska click markuu sameeyo dhexdaasna click. Geeskaas kaleetana click. Dhexda kaleetana click waan kasoo xiri doonaa. Kalarkiisa waxaan saari doonaa cadaan. Intaas markaanu sameyno wax yar ayaanu ku weynay doonaa. Yani hadda waxaa moodaa inaanu jarnay waaba jarnaba aa moodaa maahane waanu jarnay. Sida u jeedin baad intaan ayaanu highlight saari doonaa. Alta noo qabo noo copy gareey inta le noo geey. Qaybtan rotate ku sameey. Rotate waxaa la dhahaa wareeji. Qodas kale u wareeji bas. Inta markaanu sameyno shape kale ayaanu soo qaadan doonaa waa inu dul saari doonaa. Kalarkiisa waxaanu ka dhigi doonaa jaale. Size-kiisa wax yar ayaanu waxaynu ku sameyn doonaa waanu yareyn doonaa dib ayaanu soo celi doonaa. Intaa markaanu sameyno isla ayada highlight noo wada saar intaan inta noogu drag gareey wax yar noo weynay. Waxa dhan cilmiga qayb yar la isku geey keliya waa. Wax yar oo haysid marka isku geysid waxa ka soo baxaya wax macno leh. Waxaynu ku qori doonaa marka meeshaan of achievement. Intaa markaanu sameyno waynu sixi doonaa keliya move tool soo dooro qaybtan dhexda noo geey. Intaan markaynu sameyno waxaanu ku darsan doonaa qoraalkan this certificate was success president Yahish Ahmed Amin. Waxaan dhihi doonaa marka this certificate was success. Intaas markaanu dhahno intaan qoraal guuni ayaanu ka dhigi doonaa. Kadib isla intaan alta qabo noo copy gareey to ma president Yahya. Waxaan dhihi doonaa president to Yahya. Intaan highlight noo saar kalarkan buluga si aan ugu dhigno kalarkan airdrop soo qaado airdrop inta kali ku dheh kalarkaas kuu soo baxay ama kalarkan kuu soo baxay double click dheh kadib color code-kan soo qaado. Color code-kaas markaanu soo qaadano kan ayaynu tagi doonaa move tool kan double click dheh. Kalarkiisa qaybtaas tag kadib inta ku baasti gareey qaybtan hoos highlight kuu saaraya ku baasti gareey kalarka noo qaadayay. Intaas markaanu sameyno waxaanu ku darsan doonaa qayb kaleeto lagu magacaabo
rectangle weliba rectangle mid yar ah kalarkiisa asigana waxaynu ka dhigi doonaa kalarkan buluga hanoo ahaayo waxyar dib aynu celi doonaa waxaynu dhihi doonaa marka magaca ayaanu soo geli doonaa magacan yahay sheekh axmed aamin kadib type tool soo qaado inta kale ku dheh dhihi doonaa jireer yahaye sheekh axmed magacayga waa iska barto oo ku faraxsanahay inaan magacaygeeda baro kadib kan inta ayaanu gei doonaa double click ayaanu dhihi doonaa fartan uma baahnin siaan fartan ku helno waxaanu soo dooran doonaa idrop inta keli ku dheh kadib kalarkan markuu soo baxo double click dheh kalarkan kaleeto soo qaado halkaas soo basti garey markaad soo basti gareysid kan imaad kan double click ku dheh move tool soo dooro horto kadib double click dheh kalarkaas qaybtaas tag kadib basti ku dheh kalarka si default ayuu noogu qaadan doonaa waynu weyney doonaa wax yar markaanu sameyno shift ayanu qaban doonaa xagga intana shift ayanu qaban doonaa rectangle halkan wax yar naga weyn shift qabo si hal dhinac u yareysa asigane markaynu sameyno waan isku xiri doonaa oo ku tusi doonaa intaa marka highlight wax yar nooga saar kadib inta u celi intaa markaynu sameyno waxaynu ku darsan doonaa qaybtan kaleeto ah lorem qoraal waxaan ku darsan doonaa qaybtan kaleeto oo ah qoraal qoraalka waa iskiibi korin doonaa shahaadada adiga ayaa yaqaan waxa ku qoranayso qoraalka keliya tusaale waa naqshadan shahaadada si loo design gareeya ku tusaya qoraalkan waa qofka shahaadada yacni design kasto ama jaamacad kasta ama qof kasta shahaado bixinayso qoraal gooni isticmaashaa qoraalkaada inta gashan doontaa haddana qoraalkan ay isticmaali haya waa iska tiri doontaa intaa markaanu sameyno kadib icu data waxaa la rabaa signatureka signatureka means fartan yacni saxiixa signatureka waxaa la rabaa saxiixa signaturekaska qoraal waayn oo isu kuubi garaysan doonaa qoraal waa samayn kartaa wax weyn maahan keliya waxaanu soo gashan doonaa intaanu suu kuubi gareebin round rectangle round markaanu suu kuubi gareyno wax yar qaybtaas ayaanu dhigi doonaa inta markaanu dhigno kalarkiisa waxaynu ka dhigi doonaa kalarkan jaalaha labadan kale bisa isticmaali doonaa wax yar waanu yareyn doonaa intaa markaynu sameyno tig ayaanu saari doonaa kadib signatureka ayaanu kuubi gareyn doonaa signatureka markaynu kuubi gareyno inta ayaanu dhigi doonaa yani qofka inta ayuu signature ku sameyn doonaa kadib intaan kuubi noo dheh halta qabo inta gey si markaynu sameyno tan waxaynu ka dhigi doonaa oo keliya qoraalkan bis aynu ka bedeli doonaa qoraalkan waxaan dhihi doonaa dat taariikhda okay dheh qofka taariikhda inta saxiixa iyo taariikhda waa muhiim laga maarmaan waayen taa markaynu sameyno waxaa naga maqan oo keliya waxa waayen sawirkan asigana telegramka ayaanu soo dhigi doonaa file place link place embedded iyo place link same waa isticmaali kartaa badanaa waxaan isticmaalina place link waxaa isticmaali kartaa place embedded kadib sawirka kuusoo galayo sawirkan background ayuu wadiya sida loogu jaro hore ayaan u baranay waxaanu tegi doonaa qaybtan eraska magic ayaanu kasii dooran doonaa meel banaan ayaan keli ku dhihi doonaa kalar oo backgroundka ah kadib okay mar labaad keli background saas ayuu noogu jarmay sidaas fudud ayaa background ku jari kartaa wax weyn maahan waxaan filayaa inaan sidii tahay aan u naqshadaynay yani wax yar kuwan ayaa naga qalqaloocan adiga ayaa tuusinayo wixii qalad adiga ayaa saxanayo muhiimadda waxay tahay inaan idin baro sida loo design gareeyo shahaadada runtii intii karaankayga ah waxba idiga mahakaran doono hadduu alla idmo waan idin hagar bixi doonaa design ugu qurxan ayaanu soo qaadan doonaa keliya adiga wax kaa codsanaya waxay tahay inaad subscribe-ta aad nagu caawidid asxaabtaadana aad u sheer garaysid si ay noogu soo biiraan janalka insha allahu tacaala cashirkayna maantay inta ayaanu ku ekeyn doonaa cashirkana waxaad ka heli kartaa telegramka ayaanu soo dhigi doonaa sawiradan isticmaali haya kan iyo sidoo kaleeto hadda sawirkan bis ayaa sar ugu jiro iyo wixii kaloo muhiim u arko telegramka ayaanu soo dhigi doonaa insha allah waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh